السلام عليكم رمضان وناكسن صاحبada ku xiran kanaalka cilmi baaris waxa macquul in aad dareentid oon iyo baahi badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan balse maxaad kala socotaa magaalada ku taala caalamka ee laga soomo kaliya 3 saac iyo bar maalinkii haddaba intaanan muuqaalka u galin like saar muuqaalka siina share garee si uu saaxiibo badan u gaaro sidoo kale haddii aad cusub tahay subscribe saar channelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale saacadaha la soomo ee caalamka ayaa ah kuwa kala duwan marka loo fiiriyo wadamada iyo magaalooyinka adduunka tusaale ahaan qofka muslimka ee jooga jasiiradaha Iceland iyo Greenland waxa qasaba inuu soomanaado muddo ka badan 20 saacadood taas oo qasbayso inuusan waxba cunin muddadaas aadka u dheer ee 20 saacadood ah wax yar kadib afurka soonka waxa uu bilaaban doona soonka maalinta kale maadaama habeenku yahay wax ka yar 4 saacadood oo kaliya dhanka kale marka la fiiriyo wadamada dhaca bariga Afrika ama geeska Afrika waxay leeyihiin ilaa 12 saacadood oo soon ah maalintii halka marka qaarna ay gaarto ilaa 13 saacadood wax ka badan taas oo ka dhigayso in habeenka iyo maalintu yihiin kuwa siman ama aan kala badnayn inta ugu badan wadamada dhaca geeska Afrika sida Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia haddaba maxaad kala socotaa magaalada la yaab kale ee caalamka marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan magaalada Weekend waxay dhacdaa dalka Oman ee jasiiradda Carabta waa magaalo aan ku hadal xiiskii tacbashada beeraha waxa ku hareeraysan buuro waaweyn taas oo ka dhigtay mid soo jiidasho leh balse arrinta la yaab kale ayaa ah in muslimiinta magaaladan ku nool ay soomaan wax ka yar 3 saac iyo bar marka la gaaro bisha Ramadaan haddaba sidee ayay ku dhacday waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan magaalada Weekend waa magaalo ay ku hareeraysan yihiin buuro dhaadheer waxayna joogga badda ka sareysaa ilaa 2000 mitir waxay qorraxdu u soo baxdaa 5 saac oo maalinimo waxayna u dhacdaa 8 saac iyo bar duhurnimo ama 2 iyo barka taas oo keenayso in dadka soomaan 3 saac iyo bar maalintii magaaladan waxay 150 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan tahay caasimadda waddanka Oman ee Muscat waxayna ka mid tahay magaalooyinka cajiibka ee dunida haddaba ma jeclaan lahayd inaad ku soo dhammaysato bisha Ramadaan magaalada Weekend haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kala ah fadlan ku soo biir kanaalkan cilmi baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale aan soo geli doono waad ku mahadsantahay daawashadaada